liibaan mustafa xasan adigu ku soo dhawaanay telefishinka Universal ugu horeen waxaad ka warbixisaa safarkaadii ku aadanaa dalkan Mareykanka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda Soomaaliyeed meel kastoo iga daawanaysiin waan salaamayaa gaar ahaan deeq wariyaheenna baan salaamayaa safarkaygan aan ku imid dalkan Mareykanka waa safar caafimadeed buu ahaa marka ugu horeeya marka labaad waa safar aan dadka ugu mahadnaqi doono haddii ay beedhaado waxaan soo gaaray magaaladan Madison ee gobolka Wisconsin oo xaal caafimadeedkaygu uu ka socday oo maantana igu dhamaaday oo sanadaas soo socdan uu ka socon doono haddii ay beedmo liibaan sidaad ogtahay Soomaalida inta badan way ka warqabtaa wixii dhacay dalkani marka maadaama caafimaadkaada u imaaday maxaa kuu suuragalay maanta alxamdulillah waxa ii suura galay in aan okiyaale lee xidho amba waxa la yiraahdo muraayad in halkan dusha sare kamarad ku wadato sida videoga aad ku daawan doontiin aad arkaysiin oo carabka wax lagu arki doono oo technology ee wadanada horumaray ee gaadheen oo carabka wax lagu arki doono inta ay indhihi kale ay soo noqon doonaan haddii Ilaahay yiraahdo muuqaalka marka adigu waa tijaabisay nin waxaad ahayd awl indhihiisa ay caadi ahaayeen wax arki jiray bal hadda maxaad arkaysaa markii aad okiyaashaas kale aad xirato dadka ma dareemaysaa bal dadka kale ee Soomaaliyeed kuwa indhaha leh iyo kuwa indha la'aantaba bal sharaxaad yar ka bixi okiyaashani maxay ku soo kordhisay noloshaada alxamdulillah horta marka hore waan indha qabay alxamdulillah ana qadar baa dhaco maaragtay waan indha beelay oo mugdan ku jiray Ilaahay mugdan ma galiye waxa weeyaan in qalabkan cusub ee lee xidhay aad halkan videoga aad ka daawanaysiin waxa weeyaan waa qalab waxa weeyaan moogtahay in qofku uu carabkiisa uu wax ku arki doono carabka wuxuu ku arkayo maskaxda uu tabinayaa oo hab kale iyo wuxuu arki doonaa aad iyo aad bay nolosheeda aniga kow gaar ahaan liibaan ay wax igu soo kordhisay ummad kasto Soomaaliyeed iyo ummad kasto islaanana way anfacaysaa baan leeyahay moogtahay qof kasta oo madowga ku jira oo iyaan leeyahay aad iyo aad bay u anfacaysaa hadduu xanuun indhaha kaga dhacay hadday bambaana la qarxday iyo haddii waxyaalo kale ay kaga dhaceen waxa leeyahay munaafacaad weyn iyo u leedahay marka okiyaalaha la gashado inta qof ee ku hor joogto waad dareemaysaa waad arkaysaa in halkii ka xigana dareemaysaa koob iyo hadduu ku ag yaallo falaasad shaaha waxaasoo dhan waad ku arkaysaa socodka macal xataa waad ku soconaysaa sida aad videoga uga daawanaysiin socodkiina waa lagu socdaa marka waxaa leedahay marka aad suulida rabto oo kale ama aad meel aadaysid ama aad jidka aad soconaysid waxaad noqonaysaa qof isku filan oo kaligii socda qof aad iyo aad isku filan oo kaligii socda baad noqonaysaa inkastoo aad la mid haanayn kii indha qabay ee ordayay adigu wax baad ka gaabini laakiin waad soconi waxaad ka bixi in bilaadanka maaragtay qof qacanta ku qabta iyo amba aad guri aad ku dhex jirtid intaad aad indha laadihid oo dhan taasaad ka maarsamaysaa waad soconaysaa kaligaa baad socon ayarna waad u socon si qoyara baad u soconaysaa laakiin arintii kale ah ina filmaanta fiirsato kale amba TV-yada kale aad fiirsato kale wali taas lama gaarin inaad filmaantii fiirisay wali taas lama gaadhin laakiin way soo socotaa sanadaha soo socda imikadanba 2 bilood kadib mid kameradan mid ka daran ayaa soo baxayso ka sii haboon oo ka sii fiican aan u jeedaa 2 bilood kadib haddana sanadaha soo socda waxa soo bixi doona mid aad ku daawan doonto videoga sidoo qofka kaleba ugu daawado maanta oo laakiin horumar aad iyo aad la gaadhay on aaladda internetka sidaad adigu isticmaashid wariye deeq anaguna kugula isticmaalayo haddii aan si xawaara aan u dheereeninba waxaa kaloo noo sheegtay in qalabkani hadda adiga aad tijaabisay dad badan waxay isweydiin karaan marka qof kasta oo aan maanta aan waxba arkaynin wuu galan karaa oo samaysan karaa marka qiimaha ku kacaysa ilaa intee la egtay والله waxaan ku leeyahay horta qalabkan indhahoogi macana uma bedelayaan laakiin waa ku meel gaar qalab ku meel gaar horumar hadana sida ugu socda waxa weeyaan in lacag dhan waxa ku fadhidaa marka hore 10,000 beed bishii dodobada discount ba laga bilaabay in la waxeeyo $5,000 bay imatay qalabkan qiimihiisu laga yaabaa inay si dhimaana hadii ay helaan dad cadadkoogu uu badan yahay moogtahay ee si dhimaana waaya adiga dalkan Mareykanka martii ayaa ku tahay yaa ka caawiyay in lacagtaas intaas la eeg aad bixiso aad maanta ku iibsato qalabkaasi alxamdulillah horta waxaan marka ugu horeeya Ilaahay baan u mahadnaqayaa ummadda islaamka oo dhan noo kiciyay gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan wadda kastay ku sugan yihiin gaar ahaan jahliyada qurba joogta ayaan oran karayaa oo boqolkiiba 95 hadaan oranayn waxay ka imatay qurba joogta maanta ummadda Soomaaliyeed ee qurba joogta yaa boqolkiiba 95%
bixiyey waxaan aan maaragtay aan isku daweeyey iyo waxaan mustaqbalka isku daweyn doonaba iyagaas gargarab iyo gargaarba noo siiyey. bal hadda markii aad wadankii aad ka timid dib ugu noqoto ma waxaad leedahay shalay markii aad indhaha aan ka dhacay iyo hadda markaan ku noqdo farqi weyn ayaa u dhexeeyo waxaa noqonayaa qof wax qabsan kara oo shaqaysan kara. haa waxaa noqon karayaa in maxa ka yimid dalkii maanta nin walaalkayo halkan ila jooga maaragtay oo qacanta haya baa safarka ila soo galay waxaana leeyahay waxaan ku laamaya anoo keligay socda yaan ku laami doonaa haddii aaba idmo anoo keligay socda si qoyar u socda si safety u socda yaan ku laami doonaa haddii aaba idhaahdo qalabkan oo ejectable ah oo qalab aad ka saari karaysid waqtigaad doontid dibna u xidhan karaysid moogtahay. laakiin carabka wax lagu xiraya sidee loo saari karaa waxa weeyaan wallaahi haddaan faahfaahin saasa dheeraada aan sii bixiyo waxa weeyaan waa sidii nanac qoriga wixii la odhanayay carabkaad ku muudmuudsanaysaa carabka ayaad ku arkaysaa sawirkii ku horyaalay kamaradan yaad soo duubaysaa kamaradu markii qofkii ku horyaalay ee video ka qabato carabkiiba videogu soo tuuraysaa videogina madaxuu u tuuraya qofkii waad arkaysaa wuxuu sameynaya moogtahay maskaxdaad ka cabiraysaa. laakiin maadaama sidii nanaciyo kale aad meel ku dheganayn bal ka waran haddii aad liqdo maxaa dhici kara taasi waa halisteed bay leedahay deeqotaa halisteed bay leedahay inkastoo xadhig ay ku xidhan tahay sida mikrofoonkaagan oo kale ee xadhig ku xidhan tahay safety badan ay leedahay oona hunguriga waxa ay ku raacaynato aad iyo aad looga maaragtay taxadiray. marka waxa qaaliga ah ma kan carabka lagu xirayaa qaaliga ah mise miraayada kan carabka lagu xirayaa qaaliya oo aad iyo aad waayo kaas waxa videogaba kamaradan iyo okyaalahan maaha waa bahalkan carabka yaa len sawirkii haya maanta alxamdulilah waxay gaadheen caalamku horumar bay gaadheen inay maaragtay carabka ay ka soo qaadaan xididadii nuurka beri haddaan online waxaan maqli doonaa lugahay ka soo qaateen xididadii nuurka oo qofka lugu wax ku arkaaba inkastoo maaragtay dowladahan ay aad iyo aad u horumareen taas baan leeyahay mogtay wax la liqamaa. libanow dad badana wax isweydii kara aniga aan ka mid ahay hadda qofka hadduusan indha lahayn oo indhihiisa eber ay yihiin sidee ayay ku suura gashay ookiyaal indhaha lagu xiray haddana carabka wax lagu sii xiray qofka sidoo wax u arkaya dadka noocaasi ah oo fikradaasi qaba oo aaminsan oo kaliya in indhaha wax lagu arki karo maxaa u sheegi lahayd? waxaan u sheegaya horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay horta ilaahay baan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay abuuritaankan uu marka hore uu bilaadanka uu u abuuray yaa maaragtay haddii xubnihiisa kale ka mid ah hadduu waayo in xublaha kale ay buuxiyaan abuuritaankii ilaahay baa marka horeba saaska marka waxa weeyaan qofkii hadduu indhihii beelay waxa laga soo qaadanaya dhegtii amba iligii amba carabtii amba qacmihii xubnihii kale jidhka ayaa buuxinaya oo xubninkii isku tagaya taasaa maanta dhacday waxa dhacday mar kale oo bishii soo dhaaftay maaragtay bishii shanaad dhaweyd in ilig wax laga arko baa dhacday oo dalka maaragtay ka dhacday Yurubta ka dhacday oon annakuna aan telefoon kula hadlay oon kala qayb galayba oon la joogay ma ilig baa wax laga arkay marka waxa leeyahay abuuritaanka ilaahay marka hore saaska in xubin ay buuxiso. laakiin adii liibaan ahaan intii meeshan aadan imaan qalabkan aad tijaabin maskaxiyan ma kugu adkeed arrintaas inaad aaminto? maskaxiyan way igu adkeed run sida maanta dad kastoo ay daawanaya u odhanayaan in waxan malaha ma dhici karayo ee u leeyihiin bay anigana igu adkeed laakiin inkastoon aaminsanaa inay dadkan dowladahan ay inta annagu wax kale aan ku mashquulsannahay in iyagu wax muhiimiyad leh oo dadka munaafacaad u leh inay ku mashquuleen ay waxana ay noqon karayso wax suurtagal ah. intay Soomaalidu ay qabyaalad yanka waa reer ayo weeyaan reer abtigii waa ayo ay ku mashquuleen dadkan waxa ku mashquuleen dadkan dhibaataysan dib kasto haysta si uga saari lahayn iyo ku mashquuleen dadka kulli wadanka Mareykanka maadaama aad joogtay oo dhaqaatiirta ay ku sameeyeen alaabtan dhaqaatiirta sameeyay marka halkay ka soo jeedaan ma weydiis dhakhtarkan imika aniga gaar ahaan igu sameeyay wuxuu ka soo jeedaa dalka Shiinaha iyo ka soo jeedaa oo halkaas uu ka yimid moogtahay waa Mareykan iyo Shiinoon waxa maanta horumarkan tan aan sheegay in maanta aan sito sameeyay waxa la yahay halkaas ka soo jeedaan moogtahay dadka horumarka gaadhay. dad badan ayaa jira Liibaan oo Soomaali ah oo aan araga haysan maanta waxba aan arkeenin qaarkoodna way awoodi karaan in $5 iska bixiyaan qaasatan kuwa ku nool Mareykanka oo kale dadkaas maxaa kula taliyeed? والله كل تلا يا هرت إتكستو أودا قربها كنا إندلا إني ماركت قلب كان أي ديلسين أي قاتن وايو مركو قفكو إندلا يهاي تتكقار بس كده دعية بلا مستقبل باتاي بلا محي باتاي وحورنا قلب كان أدبو في عيه
aan meel ku qaadno shucaa ma ku bat okay haddana hadda okay Soomaali okay dad badan oo Soomaali ayaa jira oo indhala qaarkood waddankan Mareykanka ay ku nool yihiin oo awoodi karna $5,000 iska bixiyaan maxaa kula talay dadkaasi waa dadkii awoodi karaya waxaan odhan karayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee awoodi karaya ee indhala waxaan leeyahay wallahi qalabkan aad iyo aad buu nigu fiican yahay qaata cidii awoodi karayna waxaan leeyahay aan badalal Kenya kaga imanay ummadda Soomaaliyeed ah waxaan leenahay dadkii maaragtay dadkeenan baa u kacayna annaka ballan ka qaadayna inaan maaragtay horumarka maanta aan gaadhnay iyaga walaalaheena aan gaadhsiino moogtahay taasaan ka ballan qaadayna ma ka fikirtay inaad noqoto qof ambassador amba danjira ah oo dadka indhaha la oo Soomaaliya jooga ama Djibouti jooga walaalaha inaad mashruucan aad gaarsiiso oo iyaguna aad wacyi geliso oo aad ummadda kale aad wax u weydiiso si qof kasta oo noqdo qof isku kalsoon oo hadda sida adigoo kala socon kara oo wax qabsan kara oo wareegi kara oo isaga isku filnaada horta markii hore indhaha laga soo tuuray malaha waxa yidhi ilaahay baa maaragtay sabab u dhigay in kaaga dhigay inaad dadka indhaha laga soo warramo iyo ilaahay malaha adiga sabab kaaga dhigo kugu diray waxa weeyaan maanta waxaan yidhina markii indhihii aan beelayna maanta aan technology-gan horumarka aan gaadhina waxa igu weyn aad iyo aad deeqow inaan maaragtay dalalkeeniya tago meel kastay ummad Soomaaliyeed ay ku nooshahay maaragtay dal kastay ku nooshahay inaan ka gargaaro inaan tababar ka siiyo in aad iyo aad maaragtay dadkii ay nicmadan aan qabo inaan qaybiyo taasa maanta igu waajibta faradkaaba ay saaran ugu dambeyntii marka barnaamijkan yaa ka taageeraday barnaamijkan Brainportka qalabkan aan xidhanayo ummadda Soomaaliyeed baa iga taageeray mahadnaq aan la koobi karin baan u jeedinayaa waxaan ugu mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed ee sidaas caalamkoo dhan ka hadashay heeliyo waxaan deeqo horta igu weyn oo marnaba aan iloobi karin on jeclaaday inaad ila wadaagtid weligay waxaan anigu aan ku aqleystay Soomaaliya oo lacag loo diro oo haddii Djibouti la joogo iyo haddii Ethiopia la joogo iyo haddii Qurbaa la joogo Soomaaliya lacag loo diro qof oo $100 $200 lagu gargaarayo laakiin waxa dhacday in Soomaaliya lacag laga soo diro sidii qof Qurbaa joogo buka loogu gargaaro islaan baa kamid ah lacag noo soo dirtay oo Kismaayo joogtay oo taasaa dhacday ilaahayna waxaan leeyahay nicmadaas iyo kalsoonida ay dadku ay gaadheen iyo midnaanshaha ay gaadheen ilaahay taasaa noogu wadaa leeyahay waxaana ii caddaatay dadkoo dhan hadday isku tagaan Soomaalidoo dhan hadday isku tagaan inay wax noqon karayaan ee meel la gaadhi karayaan taasaa ii cad aniga maanta waxaan mar kale aan maaragtay mahadnaq u celinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nool qurba joog hadday Canada tahay hadday Mareykan tahay hadday Djibouti tahay hadday Ingiriiska tahay Belgiumka anigoo iloobeyn oo qoladii ugu horeeyay gargaarka ay fidisay ee tahay iyaga joogtay waxaana kale oo iloobeyn on tacsiir tiraanyale u muujinaya ummad kamid ahayd dadkii gargaaro maanta maaragtay dhintay gaar ahaan maaragtay in ilma iftiin oon ka leeyahay maaragtay samari ibaan walaalayaal